ميديو وحبيدا كما قدسونا وركا دي دلك يالا واد هيسان أحسابتا غرانكو runtii waxay ku mashquulsan yihiin sidii doorashooyinka u mudaysan bisha December 12 ay noogu dhici lahayd oo la isku khilaafsanayn inay waqtigooda ku dhacdo sidee waxa ka dhiman ay u dhamaan lahaayeen baa ugu muhiimsan waxa runtii dee laga wada hadlayay go'aamadii labadan xisbi ay soo wada saareen maalinta dhaweyd iyo sidii ay u hirgeli lahaayeen baa ugu muhiimsan komishanka qaranka waa u nimid waa komishan hay'ad walba qaranka shaqay leedahay marka shaqaday lahaayeen wixii kaga aadanaa go'aamada xisabta qaranku ay soo gaadheen say wixii anaga nagaga aadanaa ayaan runtii ma taqaanaa ka wada hadalay waxaanu ka wada hadalnay waxaanu dhamaantood isla wada qaadanay ayuun buu runtii ahaa marka anagu laba xisbi ahaan maanta waxaanu ugu nimid komishanka qaranka iyo maalinta horeba go'aamada labada xisbi soo wada gaadheen ee khuseeya doorashooyinka oo lagu muransanayn inay doorashooyinku inoo dhacaan 12 bisha December ciidiidana aanay jirin sidee u dhawoobi lahayd ma taqaanaa dhan walba cid walba wixii ka khusaynaysay inay runtii hawsheeda qabsato ayuun baa ugu muhiimsanayd waana islaaf kalena komishanka waxaanu ka wada hadlaynay aad iyo aad baad u mahadsantiin annagu maanta ugumaanaan talagelin inaanu shir jaraa'ido waxyaabaha qaarkood aanu kaga hadlo waayo tabashooyin badan oo wax la kala tabanaya xisaabta qaranka si uu badan ugumaanaan talagelin runtii maanta annagu inaanu ka hadalno waxaanu idin sheegaynaa kaliya arintaan ugu nimid komishanka ee ku saabsanayd go'aamada labada xisbi iyo doorashooyinka u mudaysan 12 December si uu qabsoomi lahaayeen wixii annaga nagaga aadanaa laba xisbi ahaan inaanu runtii ka wada hadalno waana islaaf kalena aad iyo aad baad u mahadsantiin waxa jira xisbiga wadani waa kan dibadda ka taagan arrimahan doorashooyinka waa kan qaadacay qodobadan aad islaaf karateen taasi sidee bay u dhici kartaa inay doorasho dalka uga qabsanto xisbiga wadani waa xisbi qaran xaq buu leeyahay go'aamadu qaadanayo annaguna axsaab qaran baanu nahay xaq baanu u leenahay go'aamadaanu qaadanayno waanu ku ixtiraaminaa go'aankooda laakiin iyaga la rabaa inaad weydiisaan xisbiga wadani wuu ogol yahay 12 December inay dhacdo doorashadu maxaa yani ka qaldan in la yiraahdo iyaga runtii weydiinaysan laakiin annaga danka iyaga maadaama go'aankaasi annagu aan rabna inaanu hirgelino 12 December inay doorashooyinkaas ku dhacaan laba xisbi ahaan waxaanu go'aansanay wixii annaga nagu xidhnaa inaanu dhamayno waana naga dhigin xagga iyaga Cabdi Casiis hal su'aal ku weydiiyo waa run go'aan buu qaadan karaa xisbiga wadani oo xaq buu leeyahay go'aan bad qaadan kartaan komishanka laakiin idin dhax komishanka ka sokow waxa dalka maamula lagu maamulaa dastuur markaad leedahay xaq buu u leeyahay go'aan buu qaadan karaa anaguna go'aan baan qaadan karnaa qodob dastuurka ka midna uu sheegayo dalka waxa doorasho gali kara 3 xisbi miyaanay taasi ahayn koowaad ee midaad aad baalmarteen idinku sharciga ee dastuurka su'aashida labaad waxa weeye komishanku markuu go'aan laba xisbi la soo saarayo go'aamada soo baxa oo xisbiga saddexaad ka maqay miyaanay noqon qaar dhinac ka raran oo aan cadaalad ku dhisnayn ma santadeer horta saddex dastuurka hagaaga inoo wada akhrino saddex xisbi inay doorasho galaan waa loo baahan yahay hadduu xisbi diido uu u diido waxaanu sharci u lahayn maxaa laga yeelay iyadana xisbigaasay tahay in la weydiiyo annagu wadani u diidi mayno doorasho inuu galaanu jecelahay waa xisbi qaran inuu xisbi qaran yahay baan ognahay laakiin wadan hadduu diiday inuu doorasho galo oon isleeyahay diidiba maayo dee taa isagaad weydiin doontaan waayo doorashadii 12 December bay noogu mudaysan tahay in la galo weeye markaa qofka ilaa anigu geli maayo maxaad ku diidaysaa in isaga la yiraahdo isaga lagala hadlo way laakiin anagu una diidi mayno wadan inuu galaanu jecelahay saddexda xisbina wada galaan baanu jecelahay doorashadaas in 12 December dib u dhaafin baanu doonaynaa ma diidana komishan isaga weydiitaa taas isaga u taala wuxuu qofku diiday isaga u taala dee isaga weydiitaa laakiin anagu saddex xisbi qaran inay galaan baanu doonaynaa doonayna laba xisbi inay galaan annaga jecel saddex xisbi inay galaan laakiin hadduu xisbi diido taas isaga u taala كمشكو بدي شيء إن عقبات كنت هاي أم بحق يلا إسبيشيف كنا وعقبات إن كنت كمشكو أذر حسبنا حسب وما هذلو حسبنا كوميشن وما هذلو كوميشن كهوشي سوق هذلا حسب ولبنا هوشي سوق هذلا أنا قد ودني ما كم وكيله كوميشن وكيل كميه تا كوميشن كنا وديه كنا وديه وأنا ما سنتين شرع وهاول ولا ليه هلا سعتين مع المهم بقى إن لوضع حسبي يعدي كلمية صدق حلقاتك بيشان ay runtii soo saareen go'aamo iyo heshiis ku saabsanaa sida ay doorashadu u qabsoomi lahayd 12 December doorashooyin golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo runtii in badan muddo dhaaftay waqtigeediina runtii dhaaftay waxa nasiib darro ah in golaha wakiiladu 14 sanadood oo runtii uu fadhiyo
14 sano ka hor baa la doortay 2005 bay ahayd ilaa alaana uu fadhiyo mar walbana uu muddo kordhis runtii uu helayay taasoo dalkan iyo ummaddan reer Somalilandba dee runtii caalamkuna in badan iyo halkii noogu yimaadeen sidii doorashooyinkaasi u qabsoomi lahaayeen ummaddana runtii dee dibadhaca dambe uu mar walba uu dee ku keenayay magaranaysa niyadjab iyo moraal xumo dad hanaankan aynu qaadanay ee demonstrationkana u ah dee muxuu ahaayey sumcad xumo u ah in mar walba golayaasheena iyo magaranaysa doorashooyinkeena ay mar walba dib u dhacaanna ay runtii dee waxaan iibinno oo ah amniga iyo demonstrationkanu oo dalkani kee duwan yahay baa guud ahaanba geeska Afrika oo sumcad iyo wanaag ku helayba dee runtii ay dibdhacaasi uu geysin karo in dee dunidu runtii dee ay magaranaysa macaamilka inala leedahay dee runtii ay naga joojiso marka dee doorashooyinkaasoo qaranka u muhiim ah ayaa runtii dee aanu runtii aad ogeeday inaanu dee go'aan aanu ka soo wasaarnay labadeed xisbi marka komishanka doorashooyinka qaranka oo runtii maanta aan halkan joogno xafiiskooda waxaan la yeelanay meetingkii labaad kulankayga hore wuxuu qabsoomay Arbacadii waxaan runtii ka wada hadalnay runtii maanta baan ka wada hadalnay sidii hawsha doorashooyinka iyo diiwaangelinta loo dardargelin lahaa muxuu ahaayey waqtiga yar harayna looga faa'iideysan lahaa dibdhac dambana aanay doorashooyinkaasi aanay ugu iman oo anagoo ka taxadirna in maanta wixii ka horreeyay hawl ahaa in la sii wada qabto ayaan runtii ka wada hadalnay runtii kulamo adag bay ahaayeen oo komishanka dee runtii aan iswadaarsanay oo hawshooda la iyo magaranaysa discussionkooda runtii uu adkaa marka ilaahay mahadii maanta si fiican ugu soo gabagabowday waxaanan ilaahay ka baryay subxaana tacaala go'aamo fiicanna waan isla soo qaadanay oo runtii dhaxalgal ah marka oo dee ku saabsanaa sidii aynu diyaargarowgii iyo dee magaranaysa inaan u hub qaadanno dardargelintii diiwaangelinta iyo u diyaargarowga doorashooyinka ayaa runtii aanu ugu magaranaysa isla qaadanay intii dee runtii mandatekoodana dee inay ummadday dalkaba uga faa'iideeyaan inta u harsan oo runtii wixii dee xaggooda khuseeyaana ay qabtaan ayaan runtii isla waafaqnay marka waxaanan runtii ku heshiinay dee sidii magaranaysa hawsha awalba socon jirtay in iyaguna u socdo waxay noo sheegeen wax badan oo runtii technical ahayd ay dhammaystireen oo ku saabsanaa serverka iyo diiwaangelinta oo runtii khubaro ay uga yimaadeen caalamka oo runtii berberyahanba joogay inay oo kala shaandhayntii serverka iyo magaranaysa dadkii berigii dhow duplicationka badnaa oo runtii 30 ku dhawaa iminka laftigooda inay kaararka u diyaariyeen waxay noo sheegeen 160,000 oo qof oo berigii dhow kaararku aan ka habsaamay oo aan qaadan in iyaguna hadda ay diyaariyeen magaranaysa kaararkoodii oo dee guud ahaanba dadkii isdiiwaan geliyay ahaa berigii dhow ka habsaamay runtii iyaguna hawl aad iyo aad muhiima ay runtii ay hayeen oo runtii dee marka ay dee wadeen baryahanba marka arrimahaas oo badan baan ayaan runtii dee iska wareysanay marka aakhirkiina waxaan ku heshiinay in loo diyaar garoobo doorashooyinkii iyo diiwaangelintii inta ka harsan marka runtii dee meetingkaygu intaasuu ahaa